wafdi ka socday dalka Masar ayaa soo gaadhay Somaliland. wafdigani horkacaya wasiirka qorsheynta ee dalka Masar ayaa isugu jiray diblomaasiyiin, saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin ka wada tirsan xukuumadda waddanka Masar. wafdigani oo qasriga madaxtooyada Somaliland uu ku qaabilay madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Somaliland ayaa waxaa kulankaasi lagaga wada hadlay sidii labada dowladood waa Masar iyo Somaliland ay wada yeelan lahaayeen xiriir diblomaasiyadeed isla markaana ay xafiisi heer sare u matalaya labadani dowladood ay isu weydaarsan lahaayeen. sidoo kale kulankani intii uu socday ayaa waxaa lagaga wada hadlay sidii ay dowladda Masar Somaliland uga caawin lahayd dhanka adeegyada baahiyaha asaasiga ay ka mid yihiin ganacsiga, waxbarashada iyo sidoo kale caafimaadka. wafdigani ka socday dalka Masar ayaa intii ay ku sugnaayeen Somaliland waxa ay booqasho ku tageen dekedda magaalada Berbera iyo mashaariic ka socday magaalada Berbera, waxayna dowladda Masar xukuumadda Somaliland u soo bandhigtay qorshe ah inay Somaliland saldhig military ka samaysato. sidoo kalena kulankan intii uu socday ayaa waxaa lagaga wada hadlay dardargelinta xidhiirkan diblomaasiyadeed ee haatan ay wada gaadheen Masar iyo sidoo kale Somaliland iyo sidii xafiisyada labada dhinac looga furi lahaa magaalooyinka caasimada waa labadani dowladood waa Masar iyo sidoo kale Somaliland, Qaahira iyo Hargeysa. wafdigani ayaa daba socday wafdi isla dalka Masar ka socday oo Somaliland soo gaadhay sanadii hore, kaasi oo hogaaminaya wasiir ku-xigeenka Masar u qaabilsan arrimaha Afrika. wafdigani way siday diyaarad khaasi ayaa maalinimadii shalay ee dalka dib uga laabtay. dhanka kale dowladda Itoobiya ayaa walaaweyn ka muujisay xiriirka labadani dowladood haatan dhex maray, iyadoona ay dowladda Itoobiya umuran dhanka webiga Niilka ay u kala dhaxeeya dowladda Masar isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay xiisadda webigaasi u dhaxaysa dowladahani ay cirka isku shareertay, balse xiriirka ay Somaliland iyo Masar haatan wada gaadheen oo aysan shaacin labada xukuumadood oo warbaahintii la xogagaali u xaqiijinaya waxay ku soo beegmaysaa xilli ay Somaliland heshiisyo diblomaasiyad la yeelanayaan dowlad aysan hore xiriir u lahayn. xidhiirkan cusub ee u bilaabmay dowladaha Masar iyo sidoo kale Somaliland ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay maalmo ka hor dowladda Masar xiriirka u jartay dowladda Soomaaliya, taasi oo taageertay dalka Itoobiya. muranka kala dhaxeeya dowladda Masar ayaa xiriir darisnimo iyo sidoo kale mid diblomaasiyadeed bala leh dowladda Itoobiya, balse ilaa hadda lama garanayo waxa ay Somaliland ka yeeli doonto xiriirkani cusub ee la yeelatay dowladda Masar iyo walaacani ay dowladda Itoobiya ka muujisay xiriirkani ay haatan wada yeesheen labadani dowladood.